السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتي وان السلام يومد الصوماليات ميل كستو joogtaan magacaygu waa Nuur Cali Ismaaciil Deere Nuur Kaax ugu horeyn waxaan salaamayaa oo halkan salaan qaaliya uga dirayaa dhammaanba bahda Darwiish TV oo ugu horeeyo agaasimaha ugu sareeya bahda Darwiish TV Axmed Laari oo ku xigo agaasimaha waaxda SSC عمر إسماعيل ديجيد oo isagana aad iyo aad halkan uga salaamayo iyo dhammaan baxda ka howlgasha Darwiish TV oo ugu horeeyo sidaan horeyba u soo sheegay Axmed Laari waxaan leeyahay salaan kaliya laaba ayaan wadiin soo marnay dhamaantiinba waxaan kale oo halkan ka salaamayo ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed meel kasta joogto halka kan waa Darwiish TV magacaygu waa Nuur Cali Ismaaciil Deere Nuur Kaax waxaan doonayaa halkan inaan ka sii gudbiyo laba maanso oo aan ugu tiriyay labadaas maanso oo waqtiyo taariikhiyan ku beegnaa oo maxay tahay ka dheehan kartaan waxyaabo badan maxay tahay la taaban karo le oo resource ku soconaya iyo waqtigoodii maasada la marin jiray oo kale ku soo beegmay sidaad ka fahmi doontaan dhammaanba toqoraan iyo horumaray waxa weeye waxaan mariyay 2020 bishii Febraayo 7 oo ku beegneed 1920 bishii Febraayo 7 Ustaad Sayid Maxamed Cabdulla Xasan laga soo kiciyay magaalada Taleex ee xarunta wahayd taas oo diyaaradaha iyo waxyaabihii dababaadkii xooga badnaa ay ku soo kiciyeen gumeystihii Ingiriisku oo ku waxyeelay taas oo baroodiiq wahayd dhammaan bana lagu xuseeyay goobaha reer SSC ama hay'adaha goobaha Soomaaliyeed dhamaantood lagu xuseeyay taasi waqtigaas ayaan tiriyay urana jeeday waqtigaas ku habooneed boqol guuradeeda ahayd waxaa jiray mid kale oo aan mariyay 2020 bishii 13 oo hadda ahayd taas oo iyana ku beegneed waqtigii Allah u naxariistay sayidku geeriyooday oo aan isaga waxa yaraatay xusitaan aan la sameeynin boqol guuradiisii bishii Febraayo bishii aan dhaho 13 ay ku dhintay email sida buugaagta ay ku daabacantay ama si ay warfidiyeenadii taariikhiyahanka ahaa ay soo gaarsiiyeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay u tibiyeen haba yaraatee ma arag wax dhaqdhaqaaq oo loo sameynayo ama xusitaana taahta Soomaalida ayaan ku dhaliilayaa sidii markaas ka filayay tii hore boqol guuradii markii ay ku soo kiciyeen diyaaradaha iyo waxyaabaha la mid ah ee jabkaasi loo geystay si looga baroordiiqay ee Taleex iyo Laascaanood Garowe Xudun Buhoodle Ceerigaabo dhulkaas oo dhan looga soo taasiyeynay dagaalkaasi waaga lagu soo qaaday haddana uu may xasuusan geeridii sayidka Allah naxariistay waxaan leenahay cidna wuxuu uga baahnaa maanta Allah naxariisto weeyaan xaajadiisu taasna waxa ka mariyay gabay aan dadka markaa ku canaanayo oo waxyaabaha kale waan ka xumaadayna waxa kamid ah bishii aan COVID-19 isla bishaas ayaamaha in yar hortoodii in Hargeysa lagu xuseeyay nimankii dileen Darwiishto ee Ingiriiska ahaa ama se ka soo horjeeday kuwaas ay xuseeyeen dad waaga maxay tahay gacan saar lahaa oo ay ku hoos noolaayeen iyaga gumaysta hase ahaatee anigu taasna waa ka xanaaqay oo mid markaas Soomaali qosaysi mid Islaam qosaysi mid ay kala toona qosaysan maaha waxaan leeyahay markaasi labadaas gabay baan idin soo gudbinayaa halka kan oo aad ka dheehan kartaan aan ku horeeyay gabaygaas aan tiriyay 2020 bishii 8 wuxuu oranayaa sidoo wuxuu yiri Darwiish wiilashii la baxay naanaysta duugoobin wiilashii dadaalka ku dhisay daawadii eeg dandaan iyo malaas wiilashii ka dhigay gaalku dimi waay ta'la nooca wiilashii ka dhalan magaca daarood wiilashii gaalada dubka cadaashay hilibkeeda wiilashii doqmay ruuga ee dildiray koofi dawladda shibibris ragii daaraha ka jeexay ee dowladweyne dilmay dhamaan qeyqa kaga duushay duulaankii barbare wiilashii dilay haraagin daa'iman u weydin ducada inuu daryeelo oo jannada baashaan dantay weeye 100 sano kadib inaan daraasayo dambina ma dardaaranka awoodda dabagalkiisii oo nin dayicin labtiisa Darwiish daabadaan kaas waa kaas gabayga kale aan raacin doonaa waxa weeyaan gabayga aan waqtigii sayidku geeriyooday boqol guuradiisii ahayd oo ku beegneed 2020 bishii 13 keedii
boqol guuradeeda oo intaas ay ku ekayd ayaan waxaan halkaas ka diyaariyay anigu gabay aan kaga baroodiiqayo sayid maxamed cabdullaahi xasan bacdama uu miisaan iyo mug xoog leh noogu fadhiyay sayba haddaan nahay abwaanada iyo gaha hal-abuurka Soomaaliyeed halkaas waxaan doonayaa gabaygaas inaan idin mariyo isaga oo tafatiran kana dhixi kartaan mugti badan iyo waxyaabo ku dheehan oo kii hore aan dhaway wuxuu yiri gabaygu نوعي هو ضباب قباي بريها المال الدهني تكري ما حضرت هذا في تمر لك الدريش ماشي بكا ضربة لك الدفاع أنت باش الدو حدا بيا ضعفها مري سيد كي تدالي أدلك جديدة دلوجيت عرفت الدهب كارل الكرة ده وغير ديوانا ده أدوية أوكرا اللي بنت دورس كورت حديقي ستمي تقول هو موجي دب ولا مدي تدي الصومات ظاهرين توفار كفي علي بقى عذاب لوجو ضو قلاي إن أنت برجوناس إنه هينوغ دوركوني dantii wiil halleeyaa diruh laba diblaysa gabadhii dalaala kuray duleed ka jiifsha dinkii harraada damal dishi ku daban laha gabalkii damaya casaan u dahaara riyihii dabayshada shabeelu damsiya tulkii dulooba cadow u dumaala dabaalkii la eeg tawran lagu daloosha habartii duryam isaa waraf lagu dilaasha geesigii dagaal gala dushiisu ka muuqda fuligii la dadiyaa dalcagaha gooya dameerkii orgooda biqle daamay jabiya odaydod aqoon baadood si loo dhameeyo tukaankii dayacan baatiga ay daldalata daryeel xilka waaya dawrigu hada gaari bilaad dareewali dogo bula sameeya dilaalin hurgooda daqaraysi yeesha ardaygii damiina dooqu ka guura intaas ayuu isna ku koobay yahay waxaan ku masaynayaa oo ku tilmaamayaa intaas oo dulicaan u soo qaatay dhammaan dadkaas uu taariikhda looga u galay haddana haba yiraatee aan isaga halkii ka soo qaadin dadkaas waxay xusaan magaranta faa'iidada inta leeg isaga uu galay ma xusaan isaga waxay xusaan 18 May oo kale 26 June oo kale 1 Luulyo oo kale 14 February oo dhahan jacayl wax ku sheegaan oo gabadhiisa shaqal gaalaada oo ay iyagu isma saynba hay'adda wax aan darajiyo meeyatoona lahayn bay xusaan markaan bacdama ka soo jeedo dadkii uu sayidku garabka ka helayay imkana waxa aan go'aansaday inaan u hiiliyo intii makaranaysayaan u kirin karayaba badwaan hay isku halabuurkii badwaan hay isku dadkii badwaan hay isku raaskii badwaan hay wax walba oo aan anagu isku mid nahay oo fartaas oo kala beedaan nahay haddana de Soomaaliya dhanba ma kala laha taariikhdiisa way ku wada faantaa waa mid wada hara iyo back up waxa loo yaqaano markaas waxa weeye qof kasta Soomaaliya ugu taas way ku saaran tahay waajibaadkaas ku saaran inaan xusto inaan taalooyin meel walba looga taago in sidii rag la shaqeynay la ogaado inta ubax la saarayo baadiriyiintii lagu laayay maxay dalka aan lahayn dulmidoonka u yimi dulmidiidku dilay halaga waanto waxyaabahaas oo kale siba dhalinyarada reer SSC waxaan kula talinayaa inay u soo jeestaan arrintaas iyada oo ay ka hadlaan dhammaantood oo maxay xatay sayidka la xuso sanad kasta marka ay maraysa bisha 13 oo la xuso sanad kasta bisha labaad 7 oo la dhiso inta ay ka kooban yihiin qalcadihii daraawushay ay ka duuli jireen aha 40 iyo sayidka siiba kuwa xiriyaha SSC ku yaallay ugu faraha badan ay ka mid tahay geedan birale dhalinyaro ka mid tahay ilaas caanood ka mid tahay jidali ay ka mid tahay badweyn ka mid tahay jidbaale ka mid tahay cirigaaba ka mid tahay baran ka mid tahay galgari boor ka mid tahay meesha la yiraahdo taleex xaruntii iyadu weyneed ah oo intaas magarada ducma ka mid tahay oo galaadi ka mid tahay oo in tiro lahayn lama soo koobi karo intaas iyo in ka badan buu yihiin marka waxay u baahan yihiin dayactir iyo dadkii taariikhdaas dahabka dhigay oo la xuso intaba aad baan salaamaya mar labaad waxaan salaamaya gudoomiyaha ama agaasimaha bahda Darwish TV Ahmed Hussein Abdi Ahmed Laari oo ku sugan wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minneapolis gaar ahaan magaalada Minnesota aad baan salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh